wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle soo dhaweynta loo sameeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye ayaa waxa duleedka magaalada Buuhoodle kaga hor yimid kumaankum kamida dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle oo ay hogaaminayaan garaadada culimada diinka uqaasha iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka wuxuu ka salaan sharaf ka qaatay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka soo dhaweynta loo sameeyay ayaa waxa loo soo galbiyay xagga iyo magaalada iyadoo wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye ay soo mariyay wadada wadnaha ah ay galbinayaan baabuur aad u tiro badani wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle kala hadlay garoonka kubadda cagta isagoo u soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa geesta kale uqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa hadallo soo dhaweyn oo ay ku cabirayaan shucuurtooda u soo jeediyay waxaana hadaladoodii kamid ah Salebaan Ciise Xagla Toosiye wasiir soo dhawow aad baan ku soo dhaweynaa waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka caafimaadka madaxda Toosiye salaam muddo mudanayaasha iyo marwooyinka sharaf kale ee u soo banbaxay inay soo dhaweeyaan wasiirka caafimaadka Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye oo maanta inoogu yimid halkan oo safar inoogu yimid gobolka ayaa anigu dhalinyarada aad baan u soo dhaweynaa wasiirka waa ku faraxsanahay maantigiisa waa ku faraxsanahay waan soo dhaweynaa waa Nimcaan Axmed Dagaal telefishinka qaranka Soomaaliland Buuhoodle